taliska booliska degmada buulo burde gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay sameeyeen holgallo ammaanka lagu xaqiijinayo oo ay ka sameeyeen degmada buulo burde gobolka Hiiraan. Taliyaha saldhigga booliska degmada buulo burde Dhame Cabdi Maxamed Cali ayaa sheegay in holgalkaasi ay ku soo qabteen dad looga shaqaysan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab, waxaana sidoo kale uu sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan dadkaasi la soo qabtay. Taliyaha ayaa sheegay inay degmada ay ka dhaceen saacadii la soo dhaafay falal amniga lidiga kuwaas oo dhawaan ay ka dhaceen degmada buulo burde. Taliyaha ayuu sheegay inay wadaan howlgallo ballaaran oo ay ku raadinayaan dadka xilliyada qaarkood falalka amni dari ka geysanaya degmada buulo burde gobolka Hiiraan, waxaana sidoo kale uu sheegay inay hadda gacanta ay ku hayaan dad looga shaqaysan yahay inay ku lug leeyihiin falalka amni dari ee ka dhaca degmada buulo burde gobolka Hiiraan. Degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka dhaca falal amniga lidiga waxaana mararka qaar xarakada Shabaab ay ka fuliyaan weeraro toos ah iyo qaraxyo, waxaana maamulka iyo saraakiisha dowladda ay sheegeen inay ka hortagi doonaan falalkaasi ka dhaca degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay weeraro ka dhan ah ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Hiirshabelle isku dhinacayo dhanka ciidamada amisom ku qaadaya fariisimaha ay ku leeyihiin gobolka Hiiraan. Al-Shabaab ayaa horay weeraro toos ah ugu qaaday xarumaha ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Hiirshabelle ay ku leeyihiin gobolka Hiiraan, waxaana sidoo kale Al-Shabaab la sheegay inay ugu xoogan yihiin qaybo ka mid ah gobolada oo ka haramiya maamulka Hiirshabelle ee gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.